السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دمانتي meel kastoo caalamka ka joogtaan isku soo noqod wanaagsan waxaan idin rajaynayaa khayr iyo barwaaqo qofka bini aadamka ah waxyaabaha noloshiisa ugu dhibaatada badan bay ka mid tahay marka uu damco inuu wax uun isbedel ku sameeyo mid baan rabaa marka inaad maskaxda ku hayso hordhac badan ma raba inaad waqti kaaga qaato in nolosha aad isbedel samaysaa ma sahlana wayna adag tahay laakiin waxaa ka adag oo ka daran inaadan isbedel la iman marka dhinacyo fara badan aad eegto nolosha wax walba oo aad damacdaba in aad wax ka bedesho waxaan kuu hubaa wax uun caqabadihii inay jirto haddana saas oo ay tahay iyadoo caqabadahaas ay taagan yihiin ba waxaa lagama maarmaana inaad ogaato isbedelka inaad la timaada inay noloshaada muhiim u tahay muhiimadda bay bini aadamku isku dhaafeen markastoo muhiimaddaas ay kula weyn tahayba isbedelkaas wuu imaan ama rafaad umar ama si fudud oo sahlan ha kuugu yimaado waxaadna mar walba xusuusnaataa nolosha tan fursaduhu mar walba kuma soo maraan midda koobaad ee muhiimka ah waxay tahay qof kasto ina ka midana aynu ku baraarugsanaano waa in haddii aad wax qabanayso ama aad go'aan qaadanayso ama aad rabto isbedel inaad samayso in aadan ka eegin bini aadamku inay kugu jeclaadaan bini aadamku inay kuu sacabtumaan bini aadamka agtooda inaad ku weynaato bini aadamka agtooda inaad qiimo ku yeelato intaasuba dhammaantood haddii ay kuu yimaadaan adoon niyadda ku haynin taasu waa wixii aad haysatay oo wax kale lagugu daray laakiin marka taasu ay tahay ujeeddada koobaad iyo hadafka aad ka duulayso waxaan kuu hubaa xaqiiqa ahaan intaan nolosha tan soo noolaa bini aadamku kama sinna 100% in ay kugu jeclaadaan kuguna sacabatumaan waxa noloshaada aad isbedel samaynayso tani marka maxay keeni tan waxaa dhici doonta in bini aadamka in ka mid ah aad kala kulanto dhaleecayn daran inay wax kaa sheegaan inay ku caayaan inay kuu gafaan xaaladaha kala duwan baa inta badan waxay sabab kuugu noqon doonaan jileeca kugu jira dartii way qofku aad buu u jilicsan yahay markuu ka fiirinayo bini aadamku inay wax ku qiimeeyaan bini aadamku waxay doonaan baa yiraahdeen waayo weligoodba way hadlayaan ma mar waxaa jirta bini aadamku ay ka aamusi doonaan ma jirto wiilkii iyo aabihii dameerka watay ee aabihii uu rabay inuu fahansiiyo in bini aadam aysan daynin qisadoodii waxaan u malanay inaad ka dharagsan tihiin si walbood wax wanaagsan u samayso bini aadamka waxaa laga heli kuwa ku dhaleeceeya kuwa ku aflagaadeeya kuwa ku niyad jabiya kuwa aan innaba kuu quurinba in isbedel wanaagsan noloshaada aad la timaado waa fikir qaldan marka inaad noloshaada ka bilowdo bini aadamku hadba sida ay dareemayaan muhiimadda ugu weyn waa adigu see dareemi anigu seen u arkaa shaygan waxaan aan samaynayo cidda nolosheeda ay isbedelka ku samaynaysaa ma dadka mise waa adiga ka waran marka adigu haddii aadan qiimo isla lahayn ma kula tahay bini aadamku inay ku qiimeynayaan waa maya kasoo horjeedkay noqon oo inta badan 90% waxaa dhacda in bini aadamku ay ku dhaleeceeyaan kadibna aad wixii ka harto oo iska dayso isbedelkii aad ku riyoonaysayna inaadan gaarin marka waxa nolosha aad samaynayso waa laga yaabaa marka qaran xataa qof bini aadam caawinayso ama wax u qabanayso ha ka eegin qofkan inuu kugu jeclaado waxaad ugu samaysaa ilaahay ayaan waji kaga dooni waxaad rabtaa inaad video samayso waxaad rabtaa inaad qoraal meel dhigto waxaad rabtaa inaad kelmad wanaagsan tiraahdo waxaad rabtaa inaad wax sadaqaysato bini aadam waji ha kaga raadin waxaad waji kaga raadisaa oo kaliya Allah subhanahu wa ta'ala naftaadu markaasay qiimo yeelan naftaadu markaasay sharaf gaari naftaadu markaasay bini aadamka agtooda ilaa markaad adigu naftaada qiimahaaga ogtahay waxa aad samaynaysaa aaminsantahay kalsooni ku qabto ogow tan kale ee bini aadamka ka imaanaysa xagga ilaahay awoodiisa ku socota markay kuu timaado waa waxaagii hore oo wax lagugu daray taasuna shaki kuma jiro wax way ku kordhin oo xoogaa qalbigaagu iyo niyadaadu way sii dhismi oo yididiilo hor la cusub baa ku galaysa oo waad ku sii dhiiran waxyaabo kale oo fara badan nolosha laakiin haddana haddaad weydo uma jabi doontid midda labaad ee muhiimka ah ee ka qayb qaadata isbedelkaaga nolosha waa in aad ku baraarugsanato in waqtigaagu uu xadidan yahay qorraxdu banaanka mar walba ma joogto waqti gooniyo joogtaa jira dayuxu sidoo kale gugumar buu da'aa wax walba nolosha tan waa xadidan yihiin baabuurkii cusbaa ee la soo gaday 10 sano ka hor ma sidiiba waa maya shay walba wuu duugoobi wax walbaana waqti bay leeyihiin middan u socdaa marka waxay tahay haddaad inta badan u dhabagasho dadka nolosha tan wax xaqiijiyay ama guul gaaray xataa taariikhdooda dad akhrido kuwa xataa qaar nolosha tan meel weyn jooga oo adigu ku riyoonaysa riyo ahaan agtaada ka ah haddaad waraysato
tallaabooyinka ay qaadaan midda ugu muhiimsan kulli anigu naf ahaantayda aan oran karo waa ka faa'iiday oon oran karo naf ahaantayda waa xaqiiqo run ah oo jirta aan ogahay marar badan in ay tahay tallaabada ugu muhiimsan ee qofku uu hadaf ku xaqiijin karo waa degdeg inay wax u qabtaan marka ay go'aanka gaaraan marka ay qorshaha dejiyaan iyo marka ay ficilka la yimaadaan waa isku xigtaa inta badan haddii waxa dib aad u dhigto ama aad tahay dadka wax ka labalabeeya ama talooyinka faraha badan raadsada hadda naf ahaantaada waxaan kuu hubaa intii aqoon kugu filan ee noloshaada aad wax kaga beddesho waad haysaa intee sanaad wax dhegaysanaysay mararka qaar waxaan idhaahdaa jooji fiidiyoyada aad daawanayso ee kala duwan ee maalin walba horumarinta noloshaada ka hadlaya oo waxaad bilowdaa inaad ficil la timaado waayo mararka qaar bay kasoo horjeedka u shaqaysaa oo waxaa laga yaabaa in dhegaysiga oo keliya ilaan dhegaysigu waa raaxo in iska dhegaysato maantana lagu dhiirigeliyo waxaa loogu talagalay fiidiyowga ama fiidiyo kastoo dhegaysato horumarinta noloshaada ka qayb qaadanaya in aad dhegaysato marka aad horumarinta noloshaada ficiladii iyo tallaabooyinkii la timid aad wado hawshii ku guda jirto xoogaa dhiirigelin yar iyo aad u baahato in xoogaa yar wax ku sii riixa ee looguma talagelin inaad meel iska fariisato iska dhegaysato maanta dhan maskaxdaadu aqoontii bay qaadan aqoontii bay quudan laakiin dhinaca kale maskaxdaadu wax soo saar ma leh wax baa maalin walba gelaya laakiin waxba kama soo baxaan marka muhiimadda noloshaada isbeddelkeeda koobaad wuxuu ku jiraa inaad ficil la timaado oo tallaabooyinkii qaado oo tallaabooyinku way kala muhiimsan yihiin haddaad tiraahdo hal fiidiyo baan dhegaysan way igu filnaan kuguma filnaanayo laakiin tallaabooyinkaa tirada badan intaad noloshaada eegto waxaa laga yaabaa hadda inaadan shaqayn waxaa laga yaabaa inaadan hadda waxba baran waxaa laga yaabaa inaadan reer lahayn waxaa laga yaabaa wax inaba ku mashquuliya inaysan jirin oo waqtigaaga oo dhan uu waasac kuu yahay kuu ballaqan yahay saacad walba waa iska furan tahay wax inaba aad ku bixisaa ma jirto waa meesha ugu fursadda badan nolosha waan hubaa 20 sano inaad jirto 25 23 24 aad sileedeen noloshu adayg badana waa sidii loogu talagalay marba haddaad dareemayso noloshu inay kugu adagtay de marka laga soo tago waxaad cuntay inaadan haysan hoy inuusan jirin wax maartay dharood gashan tahay taam waxyaabaha asaasiga marka laga soo tago haddiiba cadaadis aad dareemayso naftaadu waxay ku tusaysaa in wax ay qaban kartaa ay jirto raadin bay kaaga baahan tahay waan ogahay gudahaaga ku dhex luusan tahay waan hubaa inaad wax fara badanood garanaysood ku fiican tahay ay jiraan laakiin marka adigu kow aad isxukunto ood isu aragto waxaan inaadan qaban karin waxba inaadan ku fiicnayn balaayada koobaad ee ku haysataa waa naftaada markaa mindsetkaaga u baahan marka inaad beddesho oo abaartan iyo balaayadan u muuqato intaad ka dhex saarto in aad tusto doogga iyo barwaaqada ay haysato waayo adduunkan Allah subxaanahu wa tacaala siduu qur'aanka ku tilmaamay wax kasta oo yaalla ilmo aadan baa loo sakhiro loo fududeeyey haddaba isweydiintu waxay tahay si walbaba ha u adkaatee tallaabada noloshaada ay lagama maarmaan ka tahay inaad qaado diyaar ma u tahay midda saddexaad ee ay lagama maarmaan ka tahay nolosha inaad ku baraarugsanataa waa shayga keliya agtaada aan macquulka ka ahayni waa kaadan weli isku dayin tan waxay u baahan tahay inaad si fiican u fakarto marar badan waa dhibaato marka aadan fakaraynin oo inaba waxyaabo kale badan waa laga yaabaa nolosha inaad ka fakarto bini aadamka qaar ka mid inaad ka fakarto waxyaabo badan oo noloshaada waxba ku soo kordhinayn laakiin markaad noloshaada isdul taagtay in fakarkeedu uu kugu yar yahay waxayna u baahan tahay si qoto dheer inaad u fakarto waxyaabo nolosha tan maanta kugu adki waa macquul inay jiraan haddaad shay walba maanta u dhabagasho oon agtaada macquul ka ahayna waxaa kuu soo bixi inaadan weligaaba isku dayin wayna dhici kartaa inaad tiraahdo dee waddo aan dee ku gaari karaa iima muuqato waa sax laakiin waxa kuugu sokeeya tallaabada kuugu sahlan maxay tahay ood qaadi karta si shayga aad u gaarto hubaal waddaa jirta waddadii waxay kaaga baahan tahay raadin haddii qofku meeshuu u socdo uu garanayo hase yeeshee wixii ku kaalmayn lahaa uu yidhaahdo maba raadinayo macquul ma tahay meesha inuu gaaro waa maya qariidadii marka aad meeshaa ku gaari lahayd way jirtaa way taallaa dad fara badanoo nolosha tan kaa horreeyey baa wax badan qoray way dhici kartaa mararka qaar inaad tiraahdo cid i kaalmaysa ma haysto laakiin adduunkan kaalmo fara badan baa taal dadka bugaagta qoray aqoonta ka tegay kuwo waxaa jira kaalmadoodu ay hadda adduunkan taallo laakiin 100 sano 300 sano 400 sano ka hor adduunkan ka dhintay kuwaasa xataa caawimaad ku ah laakiin kuma muuqato wanaad marka aqoontii raadiso waa in aadan fiirin oo kaliya dadku xaggee u badan yahay waa inaad eegto maxaa saxan tallaabada aan qaadi karo hadda ila gudbooni maxay tahay
waxaana jirta mushkilad kale tallaabo yar baa laga yaabaa inay kuu muuqato laakiin yaraanteeda darteed baa waxay sabab kugu noqotaa marar fara badan inaadan waxba isku dayin haddaba naftaada intaad gudahaaga hoos isugu laabato ood naftaada is eegto waxaad isweydiisaa shayga aan macquulka kugu ahayn hase yeeshee naftaadu ay jeceshahay muxuu yahay waxaana kuu soo bixi doonta inaadan weligaa isku dayin midda afraadna waxay tahay dadku 90% aysan ku baraarugsanayn haddaad ka cabsanayso fashil waad fashilan tahay aan ku yara faahfaahiyo way dhici kartaa inaad ka cabsanayso shayga inaad ku guuldaraysato way dhici kartaa in shayga aad istiraado talo bini'aadamku maxay oran doonaan haddii sidaad rabto uu kuu noqon waayo waxyaabo fara badan oo tashwiisha kugu furan laakiin mid baan rabaa inaad ogaato meesha aad joogto ee aad hadda taagan tahay haddaadan tallaabo ka qaadin ma guulba jawaabtu waa maya meesha aad joogto sabab baa jirta kugu kalifaysa oo ku riixaysa inaad ka gudubto ka cararto tallaabadan inaad horay u qaaddo waxa aad waxaan rabto inuu noloshaada ugu soo kordho ama aad rabto inaad u xaqiijiso ama aad rabto inaad u gaarto waa in noloshaada uu wax weyn ku soo kordhinayaad ogtahay haddaba markii noloshaada shaygaas uu ku soo kordhina waxaa la yidhaahdaa guul haddii shaygaa aad gaari weydana waxaa la yidhahdaa fashil laakiin mid iga hoo maanta shay walba oo nolosha tan sidii aad rabtay kuu noqon waayaba waxaad ogaataa cashar baad ka baratay marna kumaad khasaarin wax nolosha tan aad tallaabo u qaaday oo sidaad rabta kuu noqon waayey oo fashil la yidhaahdaa ma jiro cashar buu kuu ahaa bini'aadamku waxay odhanayaan ba ha yidhaahdeen saan kuu sheegay marar badanna kuma daynayaan wuxuun bay kaa sheegi ha ka cabsan midda shanaad ee ugu dambaysaana waxay tahay sawiro noloshaadu sidaad rabto inay noqoto tani aad bay muhiim u tahay marar badan waa laga yaabaa inaysan kugu soo dhicin waxaan hubaa inay aad iyo aad muhiim u tahay inaad sawirato horta nolosha aad rabto maxay tahay baabuurka aad rabto shaqada aad rabto lacagta aad rabto inay kuu muuqato waa laga yaabaa inaad tiraahdo de qof walbaaba wixii loo qoray unbuu heli waa sax laakiin dadaal bay u baahan tahay inaad dadaasho waa lagama maarmaan qayb baad adigu leedahay qadarka iyo wixii ilaahay uu kuu qoray adigu marna ma ogid inaad meeshan qadarka soo dhigato sidii in lagu tusay ma ahan nafta iyo shaydaanka iyo waswaaskan kugu beeran weeye taasu noloshaada waxaad sawirataa haddii tallaabooyinkan aan qaado siday doonaanba ha u adkaadeen go'aamadani siday doonaanba sabab ha ugu noqdeen xataa bini'aadamka kuwa badan inaanu ku kala go'neen noloshaydu siday noqon riyadaada sawirka ku jira isa soo hordhig kabacdina tallaabada qaad haddii kale soo maahan riyadaasu marna kuu rumoobi mayso xaqiiqadaasu marna kuma hor imaan doonto shay kasta oo aad ku haminayso waa inaadan ka eegin saaxiibo miyaanu ku kala go'aynaa ma magaaladan baan ka guurayaa nolosha tani mar walba way isbeddelisaan kuugu bilaabay fiidiyowga nolosha tan isbeddel kama marnaan doonto maalin walbaaba sha'ni gooniyay wadataa haddaad tiraado waan u istaagayaa oo waxaan rabaa meeshan aan joogo inaan ku taagnaado firaashkaa raaxada leh soo ma ogid in uu yahay qabriga riyooyin badan ay ku aasan yihiin iska fadhiga maalaayacniga iska wareega social media intanoo sanad hadda adduunka joogtay social media muddo ayaad daawanaysay muddo ayaad saaxiiba la wareegaysay muddo ayaad kubad daawanaysay filimo daawanaysay waxyaabahaasoo dhan shukaansi ku jirta rag iyo dumarkaad doontid ba ahawe maxay kugu soo kordhiyeen wax la taaban karo oo kugu soo kordhiyay muxuu yahay dee mar raba inaad igala hadasho telefoon baa wiilkan la socdaa ii gaday iyo iPhone 17 iyo iPhone 16 baa la taa kama hadlayo waxaan ka hadlayo noloshaada adiga naf ahaantaada isbeddel la taaban karo oo adiga goonidaada ku ah muxuu noloshaada ku sameeyay waxyaabaha tirada badan dhammaantood marka la isu geeyo mid ka mid ah xaqiiqo waxa ku soo bixi doonta waqti badan inuu ku dhaafay waqtigan ku dhaafaya eed marar fara badan fakarayso talow maxaan sameeyaa talow maxaan qabtaa waxyaabo fara badan baad ku qaban kartaa shayga kuugu sokeeya ee kugu soo dhacay qabo overthinking marar fara badan fakarkan tirada badan ee maskaxdaada buux dhaafinaya wuxuu keenaa inuu murugo isu rogo inay niyaddu kaa jabto inaad dadka kale eegto waxyaabo fara badan oo tashwiisha ka dhasha waxaan idhaahdaa dadka aadka u caqliga badan horumar ma sameeyaan nolosha qofka uu ka caqli hooseeyo ayaa nolosha tan horumar gaara waayo caqligiisa intii ilaahay siiyay yarayd markay hal shay tusto wuu ku dhaqaaqaa halkaa shay caqligu uu tusay uunbuu ku dhaqaaqaa meesha kan kale sidii daad oo kale ayaa waxaa ku soo daadanaya 200 oo fikradood markaasuu hal midoo qura oo u dhaqaaqa garan waayaya haddii qol weyn oo buufino tiro badan oo la wada aariyay ay ku jiraan hawo lagu furo lagu yiraahdo mid ka mida
oo wax gooniyi ku qoran yihiin soo qabo ma sahlanta inaad soo qabato waa maya hadalkan waxaan ka keenaya ama ka dhisay ama ka soo xoqoqanaya waa experiment hadda ka hor la sameeyay ma rabo inaan videogan idinku dheereeyo way kugu adkaan labadan boqol ee fikradood ee qofkan ku soo dhacaya ayaa waxay keenaan inay ragaadiyaan inuusan mid ka mid ah xataa fulin suu maanta dhan u fakarayo oo wax u qorayo oo wax u qorshaynayo buu go'aan la'aan soo istaagaa isagoo daalan buu dhacaa haddana waa soo kacaa juuj waa ma'juuj bartii unbuu taagan yahay isma beddesho buurtu weligeedba way hor taallaa haddaba noloshaada isbeddel haddaad rabto inaad samayso shantaa waxyaabood waxaan dhihi karaa waa waxyaabaha aad muhiimka u ah kuwa fara badan oo kale oo ka qayb qaadanaya oo kuwa kuga caawin karana way jiraan haddaba dhammaantiin meel kastood caalamka joogtaanba haddii nafteeda yari ay gaarto intaan muuqaalka xigdib ugu kulmin waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu